haddii aad riyo leedahay ha joojin. Bilow, mar kasta oo aad riyo leedahay, waxaa jira caqabado ku imaanaya. Waxaa jiri doona dad kuu sheega in aad joojiso, dadka shaki geliya, iyo xitaa cod gudahaaga kaaga dhashay oo ku yidhaahda, miyay suurtagal tahay? Laakiin hal su'aal ayaan kuu hayaa, maxaad u bilowday? Waxaa laga yaabaa inaad horay ugu riyootay inaad ganacsi leedahay, aad noqoto qof caan ah, aad noloshaada wax weyn ka beddesho. Laakiin marka aad safarka bilowdo, wax walba sahlan ma noqon doonaan. Caqabadaha, guuldarrooyinka, iyo wakhtiyada adag way imaan doonaan. Su'aashu maaha in dhibaato kaa hor imaan doonto, waa sida aad uga falcelin doonto. Dad badan waxay riyadooda joojiyaan marka ay dareemaan daal, marka ay waayaan natiijo degdeg ah, ama marka ay la kulmaan guuldarro. Laakiin kuwa guulaystay maxay sameeyeen? Waa ay sii wadeen. Thomas Edison wuu ku guuldaraystay in ka badan hal eber jeer intuusan helin nalka korontada. J.K. Rowling, qoraagii Harry Potter, waxaa la diiday buugeeda 2 jeer. Michael Jordan waxaa laga reebay kooxdiisii kubadda koleyga ee dugsiga sare, laakiin taas kama dhigin inuu joojiyo ciyaarta. Wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan taariikhda. Maxay kuwaani kaaga duwan yihiin? Waxay fahmeen hal sir oo muhiim ah: guushu waxay timaadaa kaliya marka aad diido inaad joojiso. Gabagabo, riyadaadu waa mid qiimo leh, laakiin su'aashu waa, ma diyaar baa u tahay inaad u dagaalanto? Ha niyad jabin haddii aad guuldarro la kulanto, waa qayb ka mid ah safarka. Maanta waxay noqon kartaa maalin adag, laakiin haddii aad sii wadato, berito waxay noqon kartaa maalinta noloshaada wax iska beddelaan. Xusuusnow, haddii aad riyo leedahay ha joojin. Waddada guusha waa mid ay dad yar maraan, adigu ka mid noqo kuwa aan dib u laaban. Maanta bilow, maanta isku day hal mar oo kale.